waa maalinimo isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 24 Sebteembar sanada 2018 waxaa si toos ah u bilowday dhismaha cusub ee jaamacadda caalamiga ee Gedo ee degmada Balad Xaawo waxaana dhismaha jaamacadda iska kaashanaya dadka deegaanka jaaliyadda dibadda oo ay wakiil ka tahay hay'adda horumarinta iyo waxbarashada ee Al-Raxma boqolaal ka mid ah bulshada degmada Balad Xaawo ayaa ka qayb galay bilowga dhismaha jaamacadda madasha bilowga jaamacadda waxaa goobjoog u ahaa aqoon-yahano bahda waxbarashada degmada salaadiin culimowdiin mas'uuliyiinta jaamacadda Gedo maamulka degmada Balad Xaawo ganacsato iyo waliba ardayda dugsiyada sare ee degmada Balad Xaawo ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay Dr. Xasan Cabdullaahi Xade oo mahadceliyay dhammaan cid walba oo sadaqa ku darsatay jaamacadda Gedo waxaana bulshada dal iyo dibadba uu ku baraarujiyay in la iska kaashado sidii loo dhameystiri lahaa jaamacadda caalamiga ee Gedo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku mahadsan isukaankan meeshan isukaan keenay oon isugu nimid camal khayri ah iyo cibaado Ilaahay loogu dhawaado cibaadada Ilaahay loogu dhawaado waa laba qaybood qayb qofka ay gaar ku tahay oo asaga baa manaafacaadsanaya waa cibaado qaasira la dhahaa qaybna waa cibaado maaragtay nafcigeeda mutaaddi yahay oo dad kale ay ka faa'iideysanayaan marka Ali isugu kaana keenay inaan isu kaashano cibaado dadka ay ka faa'iideysanayaan waliba waqtiyo dheer oo fara badan xitaa socon doonta Allah isugu kaana keenay waa mahadsan subhanahu wa ta'ala waxaan Ilaahay ku mahadinaynaa inay maanta soo gaartay jaamacaddan heer ah in dhismaheedii uu socdo oo hadda maaragtay in fusuusheedii iyo darbiyadeedii iyo la dhiso fasaladeedii ay soo gaartay waqti dheer bay soo martay Allah subhanahu wa ta'ala ku mahadsan waxa u ducaynaynaa dadkii ka qayb qaatay dhisida gadida dhulkan oo ugu horeeyeen bulshada ku nool degmada Balad Xaawo oo dhulkan gaday iyo qaybtiisa kale oo maaragtay bulshada reer Muqdisho ah jaaliyadda degmadan maaragtay ama gobolkan ee Muqdisho ay gadeen iyo dad muslimiin ah oo maaragtay ayaguna islaamnimo darteed uga qayb qaatay hawsha maanta la bilaabayo oo dhismihii jaamacadda ah waxa gacanta ugu weyn ka qayb qaatay jaaliyadda degan Australia ee maaragtay Soomaaliile muslimiin jaaliyadda degmada gobolkan ka soo jeeda leh ayagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo maanta waxay la soo baxeen dhismihii jaamacadda ayaa maaragtay lagu bilaabay waana sidoo u bilowday Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhameystiraan ayaan ka baryeynaa dadka ka qayb qaatay ee dhulka gadiisa ka qayb qaatay kuwa maaragtay dhismihiisa ka qayb qaatay kuwa aqli uga qayb qaatay iyo fikrad kuwa ka qayb qaatay muxuu ahaa baraarujin iyo duca uga qayb qaatay meel bay joogaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan u baryeynaa inuu barakeeyo waxaanan ugu yeeraynaa bulshada muslimka ah meel walbay joogaan Soomaalida gaar ahaan bulshada deegaankan u dhalatay khaasatan inay huraan waxa la waxay awoodaan sidii u dhisman lahayd jaamacaddan hadda socota guryo kiraa ku jirta dhulkeedina hadda uu yahay dhismaheedii la bilaabay Ilaahay waxa ku nastaa inuu dhameystiro maamulaha jaamacadda Gedo Dr. Sheekh Axmed Xuseen Daahir waxa uu sheegay in gobolka Gedo uu yahay gobol khayraad badan isla markaana loo baahan yahay in laga faa'iideysto lana hormariyo waxbarashada gobolka marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad Allah nu mahadcelina subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo raxmadiisa noo ogoleysiyay inaan ka shaqeyno wanaaga aan u istaagin inaan jahliga la dagaalamo marka sida leeyahay waa bulshada dhammaan meesha taagan Ilaahay mahadis ka daba subhanahu wa ta'ala waxaan u mahadcelinaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha walaal jaamacadda Gedo ardadeeda sanadkii saddexaad bay hadda dhiganayaan 2 sano ay soo dhameeyeen sanadkii saddexaad ba hadda u bilowday halkaana waa dhulkeedii oo la gaday haddana dhismo u bilaabanayo bulshada reer Balad Xaawo waajib gaar ah saaran sababtoo tahay wax haday khayr Ilaahay haduu ku siiyo inaad ka faa'iideysto waa muhiim waa dhul aad u muhiim ah laakiin dhulka muhiimadiisa dadka degan bay ku xiran tahay dhulku muhiimad gaar ah ma yeesha laakiin dadka degan bay ku xiran tahay dadka degan haday noqdaan dad macna leh oo fikiraya oo maslaxadooda fiirsanayana waxa way dhulku uu hormaraya wax buu noqonayaa haday dadku noqdaan dad aan maartay aan danahooda garanaynin oo iska mashquulsan waxyaalaha waxtarin ku mashquulsanna dib baa loo dhacayaa insha Allah bulshada waxa ka go'aane saan u dhannahay inaan la dagaalano jahliga dhulka intaan leeg deegaanka gaday lacagta hadda lagu dhisayo deegaanka gaday marka lacagta koobaad Balad Xaawo laga aruuriyay dhulka lagu iibiyay tii labaad Muqdisho aan tagnay ma sha Allah dhulkii baa lagu sii waasicay intuu ahaa tii saddexaad Australia la tagay
lacagta hadda aan wax ku bilaabayna oo dhismaha uu ku bilaabanayo Australia laga keenay marka koobaad waxaan rabnaa in aad loogu duceeyo dadkaas waa dad qurbay joogaan ilaahay inuu u xafido awlaadoodii waxooda annaga meesha inoogu imaaday oo khayrka uu noo imaaday oo biyihii ilaahay fadhigeeda noogu keenayna inaan ka qayb qaadano madaxa arrimaha bulshada degmada Balad Xaawo Cabdilqaadir Xuseen Ibraahim waxa uu mahadceliyay dhammaan cid kasta oo maalkooda ku bixisay jaamacadda Gedo isagoo sheegay in aqoonta oo la hormariyo ay tahay horumar wanaagsan waxaa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala runtii noo gartay maanta intaan halkaan iskugu nimaano halkaan soo gaarsiiyay anagoo caafimaad iyo bad iyo maaragtay wanaag leh halkaan soo gaarsiiyay inta kadib waxaa runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa raggii arintan ka shaqeeyay u dhabar adeegay u samray meel walba u istaagay maanta soo gaarsiiyay jaamacaddii dhismaheedii inaan bilowno Gedo International University maanta inaan bilowno dhismaheedii maanta la bilaabo soo gaarsiiyay raggii aqligooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ku bixiyay juhdigaas geliyay waxaan leenahay taariikhda in xusi doonto waxaa kaloo mahadcelinayaa raggii hadda laga sheekeynahay oo jaaliyada ahaa raggii Muqdisho jooga iyo kuwii kale oo ahaaba Australia maalkooda bixiyay runtii dadba in badan waxay ku bixinayeen maalkooda meel uusan Allah subhanahu wa ta'ala uusan raali keen tan laakiin wax dhaxal ah rag ba professoryaal ba ka soo bixi doono jaamacaddan dhigan doono oo soo saari doonta warshad wax soo saaraysa waaye oo aqoon soo saaraysa waaye maaragtay wax qof bil aadan ah uu bixi wixii ugu wanaagsanaayo waaye maaragtay waa aad iyo aad dad u mahadsantiin aan leh inta kadib dadweynaha gobolka Gedo Soomaaliya cid walba deegaankeeda ida isku tashatay ida wax qabsanahayo iyaga jeebkooda iyo maskaxdooda iyo aqligooda isticmaalahayo waxaan leeyahay waxaan dhaliilahayaan maaragtay waa ii muuqato inay ka qayb qaataan aw jaalidii kale Australia bisa jaalidaha gobolkan Gedo dadkan bisa jiraan awi wixii kuwa Mareykanka jooga Australia jooga awe Canada kuwa jooga awe Sweden kuwa jira awe waa in laga qayb qaataa dadku wax ku noqonaya oo tayo ku yeelanaya oo horumar ku yeelanaya waxbarashada waa inaan taageernaa waxbarashada waa inaan u istaagnaa waxbarashada waa inaan saa jahliga ugu baxno dhiiga daadana ugu baxno dhalinyarada macna darraha ku dhimanaysa ugu baxno kuwa qurbaha aada tahriibahayo badda ku dhimanaan ugu baxno inaan dadka waxbarno oo dadkeena ayaan dadka ugu dabageynay kan ama ugu horumari karna saa awgeed waxaan leeyahay ragga jaaliyadaha oo gobolkan u dhashay war Ilaahay ka cabsada waa meeshii koobaadan hadda asaasi hayno oo runtii bulaxa waa nasiib u yeelatay inay arintaas hadda ku horumarto oo ku guuleysato in jaamacaddan kulliyad walba tii caafimaadka tii engineeringka tii maaragtay business shariicada nooc walba inay yeelato aanan u baahan inaan aadno Muqdisho aanan u baahan inaan aadno Kismaayo ama gobolada kale aanan in anagana la soo aado hoygi waxbarashada inaan noqono sida sheekh iyo ii sheegay ayuu maaragtay u tahay hoyga waxbarashadu inaan amuud inaan noqono hoyga waxbarashada u noqdo bulaxa way noqoto intaasna waxa ka dhigi karta markaan inteenan u istaagno soo saas ma inteena markaan u istaagno waxbarashada aan taageerno jeebkeena aanan baqeylno bixino geel aan soo gadno ariga aan soo gadno xoolo aan soo gadno soo saas diyaar uma nihin fakar la isu keenay jaamacaddan ku saabsan ma la dhisi karaa waa lagu guuleystay fakarkii waa la isku raaca haddana waxaa la keenay dhul ma gadan karnaa haddaan deegaanka nahay waa la isku raacay dhulkiina waa la gaday ma la ballaarin karaa waa la ballaariyey yaan u qaylisannaa aan u qaylisanna cidda noo dhow waa xaggee horta bal Muqdisho aan ka bilowno oo deegaanka ka bilowno oo ganacsata ka bilowno waa la isku xilqaamay maanta waxay maraysaa inaan u gudubnay jaalidihii dibadda oo aan kulli ka wada codsannay hadda ka hor in ay jaamacaddan caalamiga ee gobolka Gedo ay nala dhisaan way ka soo jawaabeen ninba tabartii waana la kala fiicnaado waa la kala hormaraa Australia birima qaadatay kow qaadatay Australia waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay khayr ha siiyo qof kasta meesha uu ka soo bixiyana khayr Allah ugu bedelo iyo maal fara badan kuwa la midka oo yareeyayna ayagana sidoo kale Allah ka dhigo hadda waxay maraysaa hadda
waxay maraysaa in aannu dhagaxiina dejinayno ciiddiina dejinayno shamintadiina noo xaraysan tahay siigadinu socoto jaamacaddina aan bilownay insha allahu tacaalaa waxaan ballan qaadaynaa deegaanka haddaan nahay gobolka gado khaasatan degmada beled xaawo in aannu u istaagno soo dhisidda iyo dhammaystirka jaamacaddaas jaaliyadaha ee ka soo jeeda gobolka gado waxay ka qayb qaataan jaamacadaha puntland kuwa muqdisho kuwa kismaayo kuwa soomaaliya oo dhan sidaas awgeed soomaalina waxaan ka codsanayna inay nagala qayb qaataan maadaama kuwooda aan la dhisi jirnay soomaalina inay nagala qayb qaataan baan ka codsanaynaa aan dhisno jaamacaddaas ummadda soomaaliyeed baana leh waa jaamacad ummadda soomaaliyeed leedahay oo ka kooban brofesoorradii dhigi lahaana ay diyaar yihiin qalabkiina loo soo wado ooy diyaar yihiin sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa mar labaad in ay nala gurmadaan waa qodob waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ama maamul ha ahaato ama jaaliyad ha ahaato ama noocay doontaba ahaatee qof kasta wixii uga qayb qaatay yaan uga mahad celinaynaa ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo annaga odayaalkaa waxaan soo dhowaynaynaa oon garbaha isku haysannaa in jaamacaddaasu ay hirgasho oo tug kale hirgasho oo isbitaalladu hirgalaan oo horumarinta shacabka iyo dadweynaha baahidiisa aan daboolno oo annagu isku tashanno waxaan u ducaynaynaa oonan ammaanaynaa aanan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qabuurahooda iyo adduunyadoodaba ha wanaajiyo jaaliyadaha astareeliya ku nool oo lacagta maanta ay bixiyeen sidaad arkaysaan dhagaxa iyo ciidda la rogaya iyo dhismaha la bilaabay iskale waxaan u ducaynaynaa u mahad celinaynaa kuwa muqdisho ku nool oo hantidii dhulka kan lagu gaday baaxadda tan leh iska lahaa waa u ducaynaynaa waan u mahad celinaynaa mahadna ilaahay baa mudan waxaan u ducaynaynaa deegaanka beled xaawo ganacsadayaashii iyo dadkii jeebabkooda inta banneeyey lacagta ka soo baxshay dhulkan ku iibiyey waa u ducaynaynaa bacdalduca iyo mahad celin waxaan codsanaynaa walaalayaalow dadka soomaaliyeedow dadka muslimiinta ahow jaamacadda midhaheeda waad aragtaanoo bilowgeedii sidaan oo kale aan uga hadlaynay midhahay dhashay waad aragtaan ardada waad aragtaan gabdhaha oo koonfur dhabarkayga ka soo joodo kuwa tukadka iga xigoo wiilashaa waad aragtaan waa ardadii jaamacadda dadka tuuranooda arkaysaanna waa ganacsadayaashii dhulka gaday waxa hadlahayo u taaganna waa ayaga waxaannu inka codsanaynaa oon inka codsanaynaa ku celcelinaynaa dadka soomaaliyeedow jaaliyadaha astareeliya ku nool siday u qayb qaateen oon ugu mahad celinayno ugu ducaynayna adinkuna aad qaybtiinna u qaadataan waa idinka codsanaynaa waa idinkugu ducaynaynaa waxaannu idin leennahay ilaahay ha idinku soo hanuushee arrintaa wax ka qabta waa dantannadii waa dantii muslimiinta waa dantii deegaankiinna waa dadka dalkii soomaaliya jaamacadda inaad ka qayb qaadataanna waa idinka codsanaynaa reer astareeliya waxaan leennahay weladkiinna allaha barakeeyo kay wax ka bukaanna allaha u caafiyo kii weladka wax ka tabaaya ilaahay ha u soo toosiyo quluubiinnana ilaahay ha hagaajiyo qaburihiinnana ilaahay ha nuuriyo annaguna ilaahay insha allahu ha noo sahla hawshaas jaamacaddaas dhismaheeda iyo waxbarashadeedaba ilaahay noo fududay dadkii hawshaan ka qayb qaatay sida jaaliyadaha astareeliya iyo jaaliyadaha kale oo deegaanka ilaa xamar oo isku taxnuujiyey waxaan leennahay allah idin barakeeyo ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo wixii aad qabateen oo wanaagga oo dhaxalka ummadda u noqonayo waxaan leennahay jaaliyadaha kale oo ummadda soomaaliyeed ama jaaliyadaha gobolkana dadkaasi ha lagu daydo annagana odayaal haddaan nahay waxaan garab istaagay ilaahay la hoosgelaynaa garab istaagaynaa sidii aan howlahan u horumarin lahayn oo aan maxaanku idhahdaa dhismahan iyo dhismo fara badan uga qayb qaadan lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la baxdeen wax barakaysan allah ka dhigo miisaanka xasanaadka allah idiin saaro qiyaamaha allah idinkugu shafeeco qabriga allah idinkugu waasiciyo waxaan kaloo u dardaarmahayaa ku soo gunaanadayaa baaq keliya inaan jeedinama ee bulshooyinta beled xaawo hadda fokuska ku soo jeedaa annaguna inaan hawshaan sii dhammaystirno oo aan kaalinta labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraadba noqon aan ku tirsanno insha allah waxaad bixisaana qof walbow adduunyada iyo aakhiraba jeebkaaga ku noqonaya naftaadaad u bixisay wiilka halkaa walaalkaaga jooga ama gabadha walaasha bari hadda wax barta eeda ku anfacaysa qofka wax bartaa wax ku taraya inta kale culays buu kugu yahay qofku hadduu dhinto waaba axbaashay laakiin qof nool oo 30 jir 4 jir waxba aqoon meel la geyn kara ma leh halis buu kugu yahay laakiin ilaahay baa hadda iska leh jaamacad intuu guriga ka soo quraacdo oo haddana soo qadeeyo oo haddana u soo cashay oo dhiganaya hameen man hadduu helo wax ilaahay loogu shukriyo wey laakiin waxay u baahan tahay wada jir wax isla qabsi jeebka hal la furo ninkii shalay wax bixiyo waxaan u malayn maanta inuu dareemay wuxuu bixiyay meel aadeen hadda culays kuma hayso waxa laga yaabaa badal khibra inuu helay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa yiri ilaahay badal buu siinaya
annagana aan reeb bulaha haddaan jeebabka furro dadka bannaankana waxaan u sheegaynaa waxaad ogaataan jaaliyad Soomaaliya nin walba meel buqay asal original hadda waa la dareemay laba dareemi jirin nin walba meeshu ka yimid tabac iyo waxa gashado waxaasna asaga anfacay Umar Cabdiraxmaan Sheekh Umar Yare xafiiska warfaafinta mu'assasada Al Rahma gobolka Gedo magaalada Balad Xaawo